waa kaan wax ku baranay, waa kaan ku asturneen, cizi iyo sharaf ku lahayn, waa kii laynagu ixtiraamayey, waa kaan ummadu ku hogaaminaynay. waddankan wuu daalay, wallaahi wuu daalay waddanka wuu daalay. aaway dadkiisii, aaway dadkuu ku daalay, aaway sow idinka maaha dadkuu waddankan ku daalay, sow wiilashiina iyo gabdhihiina maaha, sow kuwa wax ka soo baranaya halkaa, kuwa dibadda jira miyaanu sahan ahayn, miyaanu waddan ku dirsanin? maxaa loo baahnaa 20 sano 30 sano dhulkeena hooyo markuuna soo gaarsiiyey? maxaa loo baahnaa in aynu xooggan isagaa leh, quruxdan isagaa leh, caqligan iyo cilmigan isagaa leh, inaan u celinay ahayd, inaan xooggan ku dhowrno dhulkeena ayuu ahaa, caqligan inaan dhulkeena ugu shaqayno, cilmigan inaan dhulkeena gelino. maxaa yeelay dhalinyarada caalamka oo dhan dhulkoodii dhisanayaan. maxaa inaga duway inagoo islaam ah, inagoo muslimiin ah, maxaa inaga duway dhulkeennii hooye inaan caqligii iyo xoogga uuna geliyey inaan ku ilaalino, inaan wax ugu qabanno, inaan u dhisno? waa fashilannahay marka, rag iyo dumar waynu fashilannahay. ilaahay wuxuu leeyahay wahal jazaau lixsaani ila alixsaan. abaalka qofka markuu abaal kuu galo abaalkiisa jazihiisu waa maxay? sow ixsaan maaha? aaway ixsaankii dhulka aynu u samaynay? aaway nabiyullaahi ibraahim abulambiyaa waa ka maka oo angegan wiilkiisii uu geynayo ismaaciil iyo haajir, kadibna ilaahay uu baryayo. waa ka muwaadinka saxa ah, waa kan waxa laynoogu sheegayo qisada nabiyullaahi ibraahim ku dayasho ayay inoo tahay, inaynu raacnaa la doonayaa. waa ka uu dhahayo waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraat. waa ku dhahayo nabi ibraahim ilaahayow ka yeel beledkan, ilaahow ka yeel. waa beledkee? waa beledku wiilkiisa dejinayo, waa beledkuu guri ka aasaasayo, waa beledkuu doonayo inuu harkiisa harsado weeyaan. ilaahow beledkan ka yeel aamin, mid nabadgelyo ah, ilaahow mid badqaba ka yeel oo dadkiisa ku irsaaq thamaraat, irsaaq ilaahow ku irsaaq, ilaahow dharji beerihiisa iyo baddiisa iyo wixii oo dhan ilaahow keen. wuu u ducaynayaa dhulkiisa. nabiyullaahi ibraahim ku dayashaa inoogu sugan, rasuulkaa la dhahayaa ku dayo nebi ibraahim, uga dayo wadaniyadda, uga dayo diinta keliya maaha. waa ka haddana nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ku salli xabiibkiina. waa ka nebi muxamed maka uu u dadaalayo 8 sanuu jira, intuu mara xirto ayuu qaadanayaa ushiisa, markaasuu ari raacayaa, yuu u raacayaa dadka ay isku dhulka yihiinuu rabaa inuu quudiyo. ilmihii abaa taalib ganacsi buu samaynayaa, wuu guursanayaa. waddankii muxuu sameeyey? markii maka laga saarayey waa kuu ilmaynayey oo uu intuu u soo jeesta dhahayo makoy ilaahay baa igu og waxaa tahay dhulalka oo dhantii aan u jeclaa. waasic codka marka wuxuu leeyahay makoy waa dhulkiisii, waa dhulkuu ku dhashay, sidaanu ugu dhalanay halkan. waa dhulkii uu ku dhashay oo uu leeyahay makoy ilaahay baa og waxaa tahay, ilaahay baa og waxaa tahay dhulka adduunka oo dhan dhulkaan ugu jeclahay. kaama tageen, kaama haajireen, kaama carareen haddaanu qoomkaaga i kaa saarin. allahu akbar. haddaanu qoomkaaga i kaa bixin. wuxuu doonayay ilaa uu ka dhinto inuu halkaa joogo, wuxuu doonayay inuu ku sabro, inuu dhibkiisa ku sabro, qoraxdiisa ku sabro, gaajadiisa ku sabro. xagguu aadayaa haddaanu dhulkiisa ku sabrin? waa maxay dhallinyaradan cararaysa oo u cararaysa dhulalkii gaalada, u cararaysa cayaarka beenta ah, u cararaysa ka cararaya dhulkoodii hooyo, dhulkii waalidka ahaa ka cararaya. war dhulkan haddaad ka carartaan yaa soo degaya? soo looma baahneen? hooyada hadday gaajaysan tahay adaa wax siin lahaa. aabbaha waalidka hadduu gaajaysan yahay, hadduu aradan yahay, hadduu ooman yahay, hadduu cudur qabo, haddii uu baahan yahay, yaa la rabaa inuu garab taagan yahay. dhulku wuu daalay,
xaggee loo cararayaa in loo sabraa la doonayaa dhulka maxaa yeelay sabraa sadhela ولئن صبرتم لهو خير للصابرين haddii aad sabartaan dhulkiina u sabirtaan gaajadiisii aad ku sabirtaan idinka aad ku shaqaysaan akhiiran wallahi taasaa idin khayr badan cizigiina iyo sharafkiina inaad ku soo ceshan kartaan. qof walba dhul yaa dhisa, dhalinyaradaa dhista. odayaalku waa caqli, xooggu waa dhalinyaradii. innagaa laynaga rabaa inaynu dhisno. nabi muxamed sallallahu alayhi wasallam, nabi muxamed eeg markuu tagay madiina waatuu u ducaynay oo uu leeyahay ilaahow dalageeda noo barakee, ilaahow beeraheeda noo barakee, ilaahow noo barakee beegeeda, ilaahow noo barakee hawadeeda, ilaahow noo caafi. waata ilaahayna ka aqbalayo. qofka waxaa la rabaa dhulkiisa hooyo inuu u duceeya la doonayaa. maceeb baa dhulkeena inaan jeclaano, maceeb baa dhulkeena inaan u ducayno, dhulkeena inaan u shaqayno nadaafadiisa ka shaqayno caafimaadkiisa, ka shaqayno wacyigelintiisa, ka shaqayno nabadgelyadiisa, ka shaqayno. waa waxa lagu faano, waa waxa rasuulka 23 sano sallallahu alayhi wasallam isaga iyo saxaabadiisa ay ku faanayeen, ay u soo jeedeen inay Maka nabadgeliyaan. tan afraad, dhalinyarada iyo social media. walaalayaal, social media waa nicmo ilaahay ina siiyey. social media waa nicmo ilaahay ina siiyey. waa aalad laba maarkay af leh. waa nicmo in anagoo imika hadlaynaa nalaga maqlay caalamka oo dhan. nicmo walba maxay u baahan tahay in ilaahay inoo waxay u baahan tahay nicmo walba in lagu shukriyo, si laynoogu dhowro, si laynoogu ilaaliyo, si laynoogu daa'imiyo. waan u baahannahay social mediaha, laakiin waxaad ogaataa waxa aynu ku qorayno social mediaha, waxa aynu ku akhrinayno, waxa aynu eegayno, waxa aynu ku hadlayna dhammaan waa xisaaban yihiin. ilaahay agtii bay ka xisaaban yihiin. hadalka wax waa lagu dhisaa, waxna waa lagu dumiyaa. noqda kuwii hadalkooda wax ku dhisa. maxaa yeelay ilaahay baa dhahaya wa inna calaykum laxaafidiin. social media aad u maqla wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun. ilaahay halkaa wuxuu idiin yeelay waa maxay? malaa'ig buu saaray, raqiib iyo catiid la yidhaahda, diyaar ahoo ilaalinaya, qoraya af iyo adin waxaad ku hadlaysaan. waa la qorayaa waxa kan. awal malaa'igtaa la dhahayay waxbay qoraysaa, laakiin waxaad ogaataan maanta idinkaa qoraya, idinkiibaa malaa'igta ka badiyey. war waxa aad ku hadlaysaan ee aad duubaysaan ee aad sheegaranaysaan, waxaad ogaataan waxaa lagu darayaa kuwa malaa'igtaa lagu darayaa. berrito markaasaa lagu dhahayaa iqra' kitaabak. kaa 24 saac dhex fadhiya meediya, xumaanta fidinaya, dadka isku diraya, ka shaqaynaya namiimyada, ka shaqaynaya fasahaadka, fisqiga iyo fuxshiga ku fidinaya maqal iyo muuqaal. waxaa lagu dhahayaa markaad dhimatid, qiyaamuhu ma dheera, caawa haddaad dhimatid kitaabkaaga lagu kala bixinayaa. waxaa lagu dhahayaa iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasib. ilaah baad ku dhaashay kitaabkaaga akhrisa. markaasaa waxaad leedahay intaad yaabtid ilaa shalay wixii aad samaysay waad ilowday, daraad waxaad duubtay waad ilowday gabadhaada, wiilkaaga sidoo kale habeen hore wixii aad duubtay fuxshiga ahaa waad ilowday. laakiin ilaahay ma ilaawin, ma unan ilaawin. markaasaa waxaad dhahaysaa maa lihaada alkitaab laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha. waa maxay kitaabkan aanan ka tegaynin wax yar iyo wax weyn. soo ma ogid addoonkii allah waa addoontii allay. waxa ninka xumida wadaa ee si xun intuu u hadlo, si xun beeni propaganda keena, markaad u sheegaraysid adigoo xataa dadka tusaya, waxaad ogaataa inaad ku dembi tahay, inaad la mid tahay isaga oo kale aad tahay. kumanaanka fiirsanaya ayaad adiguna ku dembi tahay. ogow, eeg dadka maanta xumida ka wada social mediaha, inta daawanaysa live-ka eeg waa kumanaan weeyaan. laakiin culimadii iyo khayr wadayaashii, sama wadayaashii eeg beejajkooda markay hadlayaan qaala allah qaala rasuulullah 10 20 30 ruux waxaan ba gaareenin baa daawanaya.
وحاميس إيقعداتي إن إلهي وليهي ولقد صدق عليهم إبليس ذنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس كدارتيسي والله وكدبيي أو إلهي ودارتي أو يري نين كان عدرتي جنة إيقا صارتي المهيس والله كما عبود دونان بل قيب بان يلان دونا أنيقا يعبد ده قيب أنيقا أن إلهي النغضو وإبليس وحدايا قيب عن إلهي النغضو أو يعبد ده حال كودا أفكود يدين كود يقو عبد ده أيان يلانايا ما كدبيي مس ما كدبينين إلهي وعليه إبليس كو كدبيي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه ويراعن ويوضراعن المئة آدم إبليس بيوضراعن ويوضراعن يا ديدي إلا فريقا من المؤمنين إن يروا مؤمنين وانت وطلنك وواتنك صدنك بقولك داونيسا ما ركتاية تفاسيرتا داونيسا وناقة داوني يدقيسان يا علماء ذويان انتن بغبغلهن بغبغاغا شيدان كان اخرسكاه فسهادنا فحشي قوضا ننكن كمنانك داوني وعاد وقاتان يسوى كالإناتهين إناتهين حر شيدان لما شادانا قرنتي معها إنا توبت كينيسا ورتوبت كينا سوشيال ميديا كرديسا دادك دونك دالي يرد دونك دادك وذيكو وعي قليان وذاركتين اسبوعا كليا هولكا سهل إلا يسبتي جمعيه يهوري إلا يجمعهن سوشيال ميديا خير كي اللي سوقو قد بينايي وكوان قلبي يدا صوبح يويان واحد كوان حريرتين واد خير كان يسوقو قد بسيان والسوشيال ميديا سيدانا لو باعيهي ما انتو وحي حداتي ودنكينا يناد نسان كرتان ما انت وحاي عداتي وذجركينا ايو استعيلكينا ايو قلبينا ايو حريركينا هذا السوشيال ميديا سيدو وناكسن واستعماشين هذا سوصة بحدين اينا تكون لسان كرتان ودنكينا اينا تقارنكينا كو الى شنكرتان اينا تمدلمذين كو الى شنكرتان عالم كان هذه الهي ورتي اتودي كرتان وانا كان انه اتاقن مدلمذيني انه قارنكيني الدفاع عنينا وذجرك كيني مدني مديني الدفاع عنينا ولا ليال سوشيال ميديا هلا يفايدستو سيدو وناكسن هلا يفايدستو قلبك قدام بيا كويرا ديران دونو وكينو بلانسانين عفي ولالكا عفيسك واحد قرانيسا ولا ليال وعز إلهي هرتي وشرف ومدنمو وفرحت وفضيد وهرمر عزيك الشرف ما هني وحكلم حفزك الشرف ما هني وحكلم مكانه وحد قرنيسان وان ما انت اذن كوكو بشارين يا هورين عادي قم قشين اذا الكين ما انت والله ثم والله امان شهاد ما دين هلكن قروح دان اتقبتان قروح دان ادوف دان يذبتان والله ما انت وحدكو كسبنيسان دنبي داف اي سدد جنو جنات عرضو كويه تدبد السماء والله داربان مرايا داربان مرايا والله داربان مريا ما انت فديهينان ايو ايمانشيهينان وحاد كوكس بنيسان دم بداف ايو جنات كوين تدول السمو الهي بدحيا نغو معنا بهن الهي واكو دحيو وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اسو دقدقة او اسو كاليا دم بداف ايو تدور الجنة سداد جنة وكاليا جنة العرض قوض السماوات كي دولالك كويين وسو دقدقة يا لو دياريي جنات كان يدن بداف كان وحالو دياريي دتك متقين تا دتك الهي كبقايا ما انت وحايعت قلبي عبسي الهي اني كجرتو قلبي عبسي الهي اني كجرتو ايك الهي باينو شيغيا جنات كان يدن بدافك حدي عبسي الهي لويليو ور عبسي حقين كرادنا عبسي انو سينيس جناتك عبسي دنبيغينا لو دافاي حقين كيلينا اسغا حدنا انو شيغيو دحيا وان تعفو اقرب للتقوى الله يا
وأن تعفوا إن أدعفسد ولالكا ولاشا كان دوغي كان دير كان نولي كان دنتي كان كدلمي إن أدعفسد عفس كاسا ودو إن أد متقين كن قطان عبسي أتكوهشان عبسي أد جنات يدن بدافكو إليسان. الله أكبر. ما أنت وحالينا سينا يا عذر كان يندلودي انتقام كا أرسقا عذر كان ظلمقا عذر كان حسدكا عذر كان إنك لقيي عافمات كيسيبا ما أنت لينا سينا يا فريه أينو كوة الداووبي لحين أيو إلهي ما أنت ينو الديبي يا لو الديبي وكودها يا كميدة هرتدتكا يقا متقين تا إلهي الجنات كجينيا وحاكميدة والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. kuwa marka la dhibaateeyo dhib la soo gaarsiiyo aanan xanaaqin caradooda uurka ku qariya. Allahu akbar. kuwa caradooda laabta ku guba caradu waa dhimbil qofka ilaaliya uurkiisa dhimbisha ku damiya kuleelka kan dareemaya kan xanuunka qarsanaya oo walaalkii cafinaya maxaa ilaahay siinaya 8 janno ilaahay siinaya. la ilaaha illa allah. maxaa lagu dulmay gabadhaada maxaa lagu dulmay hooyada maxaa lagu dulmay maxaa lagu dulmay adiga maxaa lagu dulmay aabaha wiilka ay soo eegay adiga kula hadlayay maxaa lagu dulmay adiga kuina fadhiyaha doobadhawaya kuina murugaysan kuina qaylinaya harsalla ladila war maxaa lagu waa maxay culayska ku haysta maxaa lagu dulmay waxaa lagu dulmay waxaaba adduunya laga qaatay guri adduunya laga qaatay waxa laga qaatay waa ceel adduunyo waa gaari adduunyo waa shilimaad adduunya xaabo ayaa laga qaatay in yar ayaa laga qaatay laakiin ilaahay subhanahu wuxuu doonayo xaabadan inuu kugu bedelo jannad ayuu doonaya. Allahu akbar. ma la aynun raat wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar waxaan indhuhu maqlin dhaguhu arkin la bini aadam ku soo dhicin buu kugu bedelayaa shilinka yare laga qaatay. wuxuu ku dhaxshiinaya walaalka oo aad maanta cafisid ilaahay darajo maanta ku siinaya muttaqiin buu marka hore ka dhigay haddana ilaahay wuxuu ku siinaya darajo la yiraahdo ihsaan. darajo la yiraahdo ihsaan. ihsaankana waa darajada ugu sareysa darajo la qaata islaamka ka sareysa iimaanka ka sareysa. والله يحب المحسنين. إلهي وجعليهي محسنين إلهي وجعليهي محسنين واكوه ولا الله دعفية عرضنا الله تضكو غرية رسولك الله دحيا صلى الله عليه وسلم يهودي مركي دبتي او اي دلين او اي جبيين فوشيسي او اي عاين او اي دباتيين كسو عيريين قريش كسو عيريسي مكة مركي عرب اي عجم اي يهود اي سوطاقين حبيب كاغا صلى الله عليه وسلم ايالا دحيا اساقو عيليسا صحابتي سيل الله او لدلي او لجردلي او لحرحري او لبهدلي ايالا ليعي فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. عفي بالليعي او سامح كون محيالي سامحوا معها اللي دناشو اناد عفسا معها عب معها دلنما معها بل وعزي يا الشرف. عفي باليري ان الله يحب المحسنين. الهي كو احسانك سمية او عبادة احسانك كل رغما انا عارسن الهي واجعلي جعلك الهي هيك محلو الهي hadduu ilaahay ku jeclaado adoonka allow sababad maxuu ku siinayaa cafiska waakan waa marka hore wuxuu leeyahay adoonkayga markaan jeclaado oo warkayga uu maqlo waxaan u noqonayaa indhihii uu wax ku arkayay indhahaaga xumaan dambe arki mayaan dhegihii uu wax ku dhagaysanayay dib dambe dhegahaagu xumaan ku dhagaysan maysid afkii uu ku hadlayay gacmuhu wax ku qabanayay lugihii uu ku socday ayuu maaragtay ilaahay u noqonayaa. waxaa ka sii daran والله بوليه يا الله هدي هو وحي ويديستو الدون كان انجع لاذي والله هو سينايا
haddii uu wax weydiisto waan siinayaa, haddii uu wax iga magangalana waan ka magangelinayaa. yaa dhahaya ilaaha ballantiisa oofiyaa dhahaya. waxaa dhahaya ilaaha awoodda leh, waxna kaa difaaci karo waxna ku siin kara. maxaynu u qaadan laana? ilaahay baan ku dhaariyey. eeg fadiilada iyadaa nabi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wuxuu sameeyey, wuu qaatay, cafiskaasuu qaatay. ilaahay baa dhahaya dadkan ku dhimay, ku dilay, ku fogeeyey, ku xasday, khud ilcafwa waamur bilcurf waacrid can iljaahiliin. waxaa la dhahaya cafiska qaado. hadday isugu kaa timaado inaad aarsato iyo inaad cafiso, qaado cafiska. maxaa yeelay cafiskaa ka wanaagsan, cafiska ayaa ka wanaagsan inaad aarsatid. cafiskaa ka wanaagsan in aad walaalkaa uurkiisii murugelisid, xumidii lagu geystay xumi kale inaad ku aartid. maxaa yeelay waad leedahay inaad cafisid walaalkaa, waad leedahay inaad aarsatid. wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. haddii laydin ciqaabo, ilig laydinka rido, qof laydinka dilo, waad ka dilan kartaan, iligii waa ridi kartaan, ishii waa ridi kartaan, laakiin ma khayr baa idinkugu sugan? nafsadaada iyo shaydaan ayaad u danaysay markaa, ayaad u hiilisay markaa, laakiin ilaahay ma doonayo. haddii wax laydin dhimo, haddii dil laydin geysto, haddii laydin dulmo, ilaahay wuxuu leeyahay dadka la dulmee sabraa meel buu u diyaariyey. ilaahay wuxuu u diyaariyey cafis, wuxuu u diyaariyey jannaad, xuuralciin ayuu u diyaariyey. walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin. waxaa la yidhi haddaad sabirtaan, ilaahay dartii u cafisaan, ilaahay wuxuu idin diyaariyey maxay? taasaa idin khayr badanoo jannaadu idin diyaariyey. eega ilaahay ballamuhu inoo qaadayo walaalayaal, waa waxa aynu raadinayno weeyaan. nebi muxamed waad garanaysaan, makadii dishay, makadii soo tuurtay, makadii ay cayrisay, makadii beder iyo uxud iyo khandaq uga daba timid oo la dagaashay. maalinkii uu furay, sanadii markii uu tegey oo uu furay, maxaa dhacay? mar allaala markuu furay muxuu sameeyey? dadkii dilay ayuu u tegey, dadkii dilay ayuu u tegey. mar allaaliyo markuu u tegey muxuu sameeyey? wuxuu yidhi maanta maxaad iga filaysaan? dad yahow maanta maxaad iga filaysaan? waa dadkii dilay xamsa, waa dadkii guryihiisii dhacay, maxaad iga filaysaan ayuu yidhi. muxuu ku yidhi? waxay yidhaaheen qaaluu khayraa, khayr baanu kaa filaynaa bay yidhaaheen. allahu akbar, khayr ayaanu kaa filaynaa. akhun kariimun wabnu akhin kariim, walaal baa tahay wanaagsan, waxaa tahay walaalkeena wiilkiisii baa tahay. allahu akbar. muxuu yidhi? idhabuu faantum tuwaqaa, xor baa tihiina taga. eeg siduu u cafinayo rasuulka sal allahu calayh wasalam. allahu akbar. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam, eeg nabiyullaahi yuusuf waad garanaysaan, dadkii ceelka ku riday, nabiga dadkii ceelka ku riday, eeg dadkii ceelka ku riday muxuu sameeyey? ceel baa lagu riday, intaasoo sanay dulmayeen. mar allaaliyo markii la dulmay ayaa walaalihii muxuu ku yidhi? walaalihii intay u yimaadeen ayay uyu cafis bay weydiisteen. markaasaa wuxuu yidhi laa tasriiba calaykum alyawm, laa tasriiba calaykum alyawm, yakfir allahu lakum wa huwa arxamu raaximiin. maanta laydin dagaali maayo, maanta waa laydin cafiyey. yuu dhahayaa? waa dadkii ceelka ku riday weeyaan. maxal baa lagugu riday adiga? maxal baa lagugu riday adiga? ma dhibaatay nabiyaalkaan la gaarsiinin baa lagu gaarsiiyey. maxaa loo baahan yahay marka? inaynu ku dayanno nebiyadeenna, inaynu ku dayanno rasuulkeenna, nebi yuusuf iyo nebi muxamed, nebi ibraahim, inaan ku dayannaa loo baahan yahay. walaalayaal, aad iyo aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ayaad ii daawanaysaan, ayaad ii dhegaysanaysaan. waxaan rabaa marka miraha cafisku leeyahay inaan idin siiyaan doonayaa. haddaan cafiyo walaalkay maxaan helayaa? rasuulka waa ka uu dhahayo sala allahu calayhi wasalam, man kadama qaydahu
من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. الله أكبر. قفك عرديس قرية، قفك قرية عرديس ولالك عفيا isagoo awood u leh inuu ka aarsado. waxaa la yidhi ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxiyaa iimaan iyo amni iyo nabadgelyu ka buuxiyaa. allahu akbar, allahu akbar. wuxuu kaloo leeyahay alla eeg idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. haddii xumaan lagu geysto ha u geysanin, haddii lagu gooyo ha gooynin, haddii lagu xumeeyo ha xumaynin. idfac bilatii hiya axsan, idfac bilatii hiya axsan, idfac dhiib bilatii hiya axsan. xumaanta lagu geystay mid ka wanaagsan dhiib. haddii lagu dilo oo ilmahaagii la dilo adiga noole, haddii lagu dulmo adiga cafi, haddii lagu gooyo xiriiri. oo waxyaabaha diinteenni aynu ka dhaxalnayna baraysa weeyaan. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. diinteenna maxaa ka cizi badan, diinteenna maxaa ka sharaf badan, diinteenna maxaa ka naxariis badan, diinteenna maxaa ka qurux badan, diinteenna maxaa ka cafis badan. idfac bilatii hiya axsan. haddii lagu xumeeyo ha xumaynin, haddii lagu dulmo ha dulmin, haddii lagu dilo ha dilin, haddii lagu fogeeyo ha fogaynin. idfac bilatii hiya axsan. oo maxaan ka helayaa markaa iyadaa? faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. kii shalay ku gooyey, ku dulmay, ku dilay, ku dhakray, ku khiyaanay, waxaabaad arkaysaa daqiiqada kadib isagoo saaxiib qaali ah, isagoo ku jecel, isagoo ku adeegayaad arkaysaa. waadna aragteen social mediaad ka aragteen, weliba isbuucii hadda ahaabaad ka aragteen. bal hala isku dayo cafiska. cafiska waxaad ku kasbanaysaa amni, nabadgelyo, waxaad ku kasbanaysaa iimaan, waxaad ku kasbanaysaa walaal fiican, waxaad ku kasbanaysaa oo uu leeyahay rasuulkeena sala allahu calayh maya xadiiث alqudsi uu bukhaari warinayo, waa kuu dhahayo ilaahay idaa aradtum raxmatii, idaa aradtum raxmatii farxamuu khalqii. allahu akbar. haddaad doonaysaan raxmadayda, haddaad doonaysaan uurkiina naxariis inaan geliyo, naxariistana waa tan jannada lagu galo. haddaad doonaysaan uurkiina inaan jilciyo, inaan jacayl idin dhex dhigo, ha ilaahay baa dhahaya u naxariista khalqigayga, u naxariista ciyaalkayga, noqda kuwa anfaca ciyaalkayga. allahu akbar, allahu akbar. waxaan rabaa walaalayaal qiso aad iyo aad u qurux badan oo aan aniga la kulmay oo cafiska ku saabsan inaan idinla sheegareeyaan doonayaa. maalin maalmaha ka mid ah magaalada Nairobi anigoo jooga habeen hooyooyin muxaadaro u qabanaya ayaa cafiskan ka hadlayay. cafiskan sanooyin baan soo waday, waxaan ugu celcelinaya miraheedii macaanaa baan arkay. inay ila aragtaan baan ayaan doonayaa. waxaan arkay hooyo waayeel ah oo ooyeysa, anna waan hadlayaa, iyadiina fiqdii baa ka dhammaatay. hooyadii ooyeysa waan naxay, waxaan isrimiyey xanuunsan tahay, waan joojiyey, waxaan idhi hooyo, hooyooyinkeena allah u naxariisto, hooyo maxaad la ooyeysaa? waxay tidhi hooyo, eega hadallada quruxda badan, waxay tidhi hooyo waxaan la ooyayaa, waxaan isqabadsiin la'ahay, isu keeni la'ahay cafiska aad ka hadlaysid adiga iyo xaaladayda aniga. waxay tidhi magaalo ka mida magaalooyinka Soomaaliya ayaa wiil yar inta bam loo soo xiray ayaa liigu soo diray, qolooyin ay wax naga dhexeeyeen ay ugu soo diray. wuu isoo ag fariistay wiilkii yaraa, bamkii ayuu isku qarxiyey. wiilkii wuu dhintay, anna waan gubtay bay tiri, dhinac baan eber ka noqday. wiilkii wuu dhintay, anigana ilaahay maadaama aan noolahay waxaan cafiyey wiilkii yaraa. ilaahay baan u baryay dembigiisa inuu dhaafo.
ninkii nafsadayda u soo dhigtay ee ilaahay iga badbaadiyey waan cafiyey. laakiin waxaan cafin lahay inkaar qabayaal shayaadiin ah oo qaraabo aan nahay, xigta iyo sokeeye aynu nahay. yurub baan ka soo shaqaystay, baraf soo xamaalay, kis yaroo aan keenay ayaan u dhiibay 100,000 oo aan iri ilmaha inaan soo celiyaan doonayaa guryo ii dhisa. guryihii bay ii dhisi waayeen, xoolihii bay iga dhaceen, doolarkii baa kacay, waa la khasaaray, waxbaa si noqday. maalin walbana guryihii way dhisayaan, dad bay siinayaan, anigina xoolahaygii way dhaceen. waan ka soo saari lahay. seen u cafiyaa daalimiintan i dhacay? way ooyaysaa hooyadii oo intii bay sii kordhisay. seen u cafiyaa? mar walba oo aan arka iyagoo gadgadoomaya, gawaari ku socda, raaxaysanaya, guryo iibinaya, 1,000 jeer ayaan dhintaa. seen u cafiyaa hooyo? sidaasoo kalea lagu dhacay wiilkaaga, sidaasoo kalea idinka laydin dhacay oo laydin dulmay oo xoolihiinni loo leexsaday, sidaasoo kalea dhulkiinni laydinkaga fogeeyey, sidiinoo kalea uurkiina xumaan loo geliyey. hooyada keligeed ma aha, waynu isdulannay Soomaalay. waxaan ku yidhi waad cafinaysaa baan ku yidhi, sababtoo ah waxaadan aqoonin cafiska doorka uu ciyaarayo. cafisku waa awood, cafisku waa quwad. waxaan idhi dadkan aad ka qaadan laadahay xoolahaagii, gacantan daalimada ee aad xoolaha ka qaadan laadahay, cafiska wuxuu awood u leeyahay. idinkuna waa idin leeyahay, dhegaysta. haddii laydin dulmay, xoola laydinka qaatay, ceelal iyo dhulal laydinka qaatay, beero laydinka leexsaday, haddii wax walba laydinka qaatay, cafiska wuxuu awood u leeyahay. maadaama awood darri halkan ay ku dhigtay, taagtaadii daraatay, cafiska wuxuu leeyahay awood inuu daalimiintan idinkaga soo qaado xoolihiinni. ma maadi ahaan xaabadanu idin soo qaadaya? maya, wuu ka weyn yahay xaabo inuu qaado. xaaba hadduu yahay inuu idin soo wareejiyo, bal xoolihiina intuu gacantan daalimada idinkaga wareejiyo ayuu gacan ilaahay oo nadiif ah oo awood leh ayuu ilaahay idinkugu dhiibayaa. kadibna ilaahay baa kuu korinaya. guriga lagaa dhacay ayuu korinayaa, kuu badinayaa. beerta lagaa dhacay ayuu badinayaa alle subxaanahu wa tacaala. kadibna maalinka qiyaamaha waxaa lagu dhahayaa nicmooyinkan faraha badan adaa leh. oo waa sidee? waa $100 ee aad cafisay, waa wixii yaraaye xaabadii adduunya. cafiska halkaa eeg. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin u sheekeynayay saxaabada, markaasuu hal mar cirka fiirinayaa oo uu dhahayaa, kor intuu fiiriyo ayuu qoslayaa. cumar baa dhahaya radiallahu canhu waardaa, maxaad la qoslaysaa rasuul allah? wuxuu leeyahay 2 addoon ayaa isdulumtay, hadda miisaankii baa la saarayaa, qiyaamihii ilaahay hortii bay jilbi u fadhiyaan. waa 2 nin oo adduunka isku dulumtay, 2 ayaa isdulumtay. eeg, ilaahay hortii ayay fadhiyaan. mid baa dhahaya, ilaahow walaalkay wuu i dulmay, xooluu iga qaatay, neef buu iga dilay, wuu i dulmay, ilaahow iiga qaad buu leeyahay. iiga qaad markuu dhahayuu dhahayaa, war ninkan xasanaadkiisii wuu dhammaado, waa la kala qaatay, waxba ma hayo, maxaan kuu sameeyaa? wuxuu leeyahay dembigayga saar. rasuulka markaasuu ooynaya sala allahu calayhi wasalam. markaasaa ilaahay baa kala dhex galaya, ilaahay baa cafiska bilaabaya. eeg, ninkii baa jannada loo furayaa, madlamada laga haystay. waxaa la dhahayaa, eeg xagga maxaad ku aragtaa? markaasuu leeyahy, waxaan ku arkaa jannaad xuuralciin ayaan ku arkaa, waxaan arkaa webiyaalo, waxaan arkaa geeda dahab ah, waxaan arkaa wax indhuhuba haynay arag, indhuhu ma arag, qalbigu biniaadan ku soo dhicin, dhaga biniaadan aanay maqal, naciim baan arkaa buu leeyahay. markaasuu dhahayaa, waxaa iskale buu leeyahay, ma rasuul baa leh, ma ambiyaa leh, ma saalixiin baa leh, ma shuhadaa leh? maye, waxaa leeyahay ninkii gataa iskale. oo yaa gadan kara xuuralciin? waxaa la leeyahay adaa gadan kara. maxaan ku gadan karaa? walaalkaa oo aad cafisid. allah, walaalkaa oo aad cafisid waxaad ku helaysaa jannaadkaa 8 aad ku helaysaa. hooyadii markay hadalkaa maqashay waxay tiri, sheekhow markhaati noqo hooyo, gabdhayahow markhaati noqda. wallaahi waxay tiri, kuwan i dhacay sanooyin aan cafin lahaa, uurkaygii ooyey, murug geliyey, waan cafiyey, ilaahay dartii baan u cafiyey. adduunyo maahay, aakhiraan cafiyey. allahu akbar, allahu akbar.
anna waxaan ugu bishaareeyey gabadhaas $100,000 $200,000 xaabada adduunyo waxay ku bedelatay maxay? jannaad bay ku bedelatay. adiga waa lagu dhacay, waa lagu dulmay, dhul iyo waxaa lagugu dulmay beer oo laga qaatay. xaabadan adduunyo diyaar ma u tihiin inaad ku bedelanaysaan jannaad 8 diyaar ma u tihiin? qof walba oo la dulmay inuu walaalkii cafiyo diyaar ma u yahay? diyaar ma u yahay? inaan duceeyaan doonayaa diyaar ma u tihiin? intiina iminka halka joogta inaad iscafisaan diyaar ma u tihiin? inta diyaarka ah idinkoo raalli iga ah ha istaagaana, gacmahana ha taagaana. allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. waa cafis guud. allahu akbar. qalbiga ma iska cafinay? qalbiga ma iska cafinay? walaalaha dhintay ma cafinay? kuwa nool ma cafinay? kuwa dhintay ma cafinay? kuwa fog ma cafinay? adduunye iyo aakhira allah idin cafiyey. fariista allah idin cafiyo. ilaahay adduunyada ha idin cafiyo, aakhira allah idin cafiyo. kuwa jannaad gala allah idinka yeelo. dembigiina allah dhaafo, culayska allah idinka qaado. ilaahay waxaan ka baryay dhalinyaradan maanta garbahayga taagan, dhalinyaradan uurkayga farxadda geliyey, dhalinyaradan ilaahay waxaan ka baryaaya, ilaahay wallaahi keligeena maahin, wallaahi keligeena maahin. halkan malaa'ig baa inala joogta, ilaah malaa'ig baa inala joogto, ina wehelaysa, malaa'ig baa aaminsanaysa. culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado, culayska allah inaga qaado. albaabada khayrka allah inoo furo. waynu harnay, ummadihii ka harnay, cizigeena allah soo celiyo, diinteenna allah nagu soo celiyo. dhalinyarada inta xanuunsan ummadeena allah caafiyo, inta xanuunsan allah caafiyo. qaar baa xanuunyo xunxun qabe allah ka caafiyo. qaar baa qoorta iiga soo xiray ducada oo xanuunsana ilaahay ha caafiyo. intaan xanuunsan bukaan jifi bukaan socod allah ha caafiyo. ilaahay waxaan ka barya dhalinyaradeena intaana guursanin guur xalaala allah ha siiyo, guur ay ku dhowrsadaan ay ku degaan allah ha siiyo, guur ubad saalix ay ku helaan allah ha siiyo. ilaahay waxaan ka baryay inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta xiran allah ha soo daayo, inta maqan allah ha soo ururiyo. ilaahay inta murugaysan farxad uurkooda ha geliyo. ilaahay waxaan ka baryay culimadeenna kor allah ha yeelo. waxaan maanta ku faanayo oo aan ku socdo oo aan runtii madaxa ii saaran waa culimadeenna, kuwa dalka joogay, kuwa dibadda joogay. ilaahay culimadeenna cimri dheer ha siiyo, cibaado sana allah ha siiyo, culimadeenna ducadooda allah hayna siiyo. waxaan idinka codsanayaa inta halkan joogta waxaa la ii sheegayaa intoodii bannaanka inay taagan yihiin. waxaan idinka codsanayaa qalbiyadan quruxda badan ee sida quruxda badan u dhegaysanaya maanta marka la baxayo gabdhaha waa in la dhowraa. maxaa yeelay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wixii ugu horreeyey uu istaagay wax xuquuqda gabdhaha ayay ahayd. maalinkuu dhimanayay waad garanaysaan wixii uu ka dardaarmay gabdhaheenna waa sharafkoodii allah soo celiyey. gabdhahan waa walaalihiin, gabdhahan waa xaasaskiin, waa eedooyinkiin, waa habaryarihiin, waa hooyooyinkiin. waa feer laydinka sameeyey, feertiina ayaa laga sameeyey. inaad qawaariirtan inaad ilaalisaan baa laydinkaga baahan yahay. guryahoodii si nabada inay ugu tagaan baa loo baahan yahay. maanta quruxdan aad ku timaadeen, akhlaaqdan aad ku timaadeen waa la duubayaa oo waad arkaysaane ilinkaana lagu qabanayaaye ha idinka muuqato. ilaahay waxaan ka baryey qof walboo walaashii caawiya, si nabada ku caawiya. ilaahay waxaan ka baryo ixtiraamoo qadariya maalinka qiyaame macal xabiib allah la soo saaro. diyaar muu tihiin? diyaar muu tihiin?
gabdhaha ha hormaraano kadibna idinkaa baxaya ilaahay waxaan ka baryayaa maanta halkaanaynu ku kulannay meel ka qiimi badan jannaadka jannatulfirdaws maca alxabiib allah isugu kaaya geeyo aad baan idin jeclahay adduunya aakhira jacaylkaas waxaan rabnaa jannaad inaan ku tagno maalinka labada isjecel ilaahay dartii isu jecel halkaa harkaa ay harsanayaan ilaahay hayna wada geeyo aad baan idin jeclahay waxaan isku ognahay waa maxay shantii qodobaan isku ognahay oo ah diinteena inaan u soo noqonno qarankeena inaan ilaalino waddankan xil baa naga saarana inaynu dhowrno social mediaha inaynu si fiican u isticmaalno inaynu iscafinno astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh waxaan marka hore u mahad celinaynaa sheekh maxamed ajri xasanaad allah kaa siiyo annagana allah nagu anfaco dhegaystayaasha ballanta qaaday waxaa laga doonayaa inay oofiyaan alla dartiisu oofiyaan ilaahayna dembidhaaf ku weydiistaan sidoo kale shiikhu markii uu baxo haddii alla yidhaahdo waa bixi doonaa iridda xaggaa xigta raggaa ka bixi doona gabdhuhuna waxay ka bixi doonaan iridda weyn fadlan yaan la cariirin dumarka ha laga baxo iridda dhinacaas xigta raggu ha ka baxo dhinaca kaletoodna gabdhuhu ha ka baxaano shiikhaan maxaa salaamaynaynaa waa mahadsantahay shiikheennii ajri xasanaad allah ku siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu